adduunku mar walba wuu kharibnaa mar walba adduunku wuu kharibnaa dad baa wax ku leeyahay adduun akhru samaanaan joognaa niyo qarax baa ka dhacaya Soomaaliya buuq baa ka jiro weligiis baa adduunku soo ahaa weligiis adduunku soo khariban bay dadkuna guuleysanayeen abidkiis adduunku soo ahaa ilaa nabiyadii nabi nuux oo 900 sano nabi ahaa baqash lagu tuuri nabi aadam dab lagu tuuri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baa magaalada ku dhashay laga saaraya madaxa dakhar dhig laga keenay miyaan la oran karin qiyaama dhacay nabigii baa la dakhar no weliga adduunku soo kharibna asxaabtii baa la dilay Umar bin Khattab salaatu jiniya xaroosh laga tuuray laga gelinay adduun khariban soo muusa ahayn dana islaamku adduunku dhan bay furteen wali hore baa loo sii marka hurdada ka kac adduun khariban ma jiro aduu hal qof baa adduun ka ta ilaa maalinta nabi aadan la keenay ilaa maanta adduunka soo kharibna ma fahmaysa weligiisna saas qayb khariban u yeelan doona waxba kaagama xirna marka adiga adduunka khariban waxba kaagama xirna magaaladaadu inaysan guryo qurux badan iyo nidaam lahayn waxba kaagama xirna inaad haysan in dadku caawiyo iyo waxaas no adigu hal qof waxba kaama gelin adduunka hareerahaaga sida u kharibaya halka qof baa la timi adduunka halka qof baa kala tagaysa there's nothing to lose here waa khasaari kartaa waa maalin buxun baa ku soo mari kartaa that's not the point always adduunka saas waa just keep moving forward qofkana laba shay kaliya wada markuu qofku hore u soconayo kow qofku waxa wada sababtiisa why waxaanu sameynaysaa why forex ugu jiraa why u dadaalaysaa why hurdada uga kacdaa aroorti hadii sababtaadu aysan ku cadeyn oo aan sababtaada aqoon wallahi ma sii socon doontid billahi tala mid labaadna waa action hadii aad ficil sameeynin hadal iyo bacbaca meesha ku hayst geedka ma gaari doontid meesha ficil baa lagu kala tagay okay ficil baa lagu kala tagay maalintii u yaraan 20 shay oo cusub wala isku didid dad baan garanayaa forex la bilownay oo bishii saddexaad bishii labaad lacag badan ka khasaartay hata lagu soo kari lahayn kaalay forex soo kala because way isdhiibeen waa ciyaal shidaadkii yiraahdaa al hortis jabay no wixii shalay aad samaysay waxba naga ma gelin anaga wixii shalay aad samaysay nobody cares wixii shalay samaysay maxaa maanta samayn kartaa laga hadlaya today is not that day maanta maalintaas lama joogo maanta waa maalin cusub adduun cusub baa la joogaa hayaan akademi baa la joogaa hayaan afrikas 2019 bishii lixaad baa la joogaa imagine 2026 bilood baa ka dhima 2020 la buunbuunin jiray less than 6 months baa ka dhima so waxba kaama gelin wixii la soo dhaafay waxba kaama gelin 2014 waxba kaama gelin 2016 so with that being said guys hal wax waan rabaa inaan idin sheego this is a journey safar baan ku jirnaa talaabadii shalay aan soo qaatay waxa ka muhiimsan talaabada bari qaadi karta please isku day ina focus ka hortaada isku day toosh dheer in ku ifsan yahay trade kanya waxa mobilkaaga kugu filan ku salaysa laakiin waxa la isdheer yahay waa hab fikirka waa hab maskaxeedka waa sida u hadlaysa waa sida u dhaqmaysa waana qof akhlaaq xun oo dadka caaya aadan ahayn qof hangaaban oo dadka magaranaysa ay ku aftaagaya aadan ahayn qof cabsi ku jirto negative ku jirto aadan ahayn xushmad ummadoodan kula dhaqan qof walba ku xushmeynaya wanaag kula dhaqan qof walba waxa ka baran kartaa da'du raba ha jiro kalarku raba ahaada meeshu doona ha jiro hadii hab dhaqan noocaas ah haystid forex waa ku guuleysan doontaa dadka forex ku khasaaraya oo ku dhimanaya oo ku rafaadsanna waa dad noloshoodii kale ay khaldan tahay hadii noloshaada kale ay khaldan tahay forex-kaaguna wuu khaldanaanaya hadii noloshaada kale dabeecadaha kale dhaqankaaga kale iimaankaaga kale ay hagaagsan yihiin forex-na ku hagaagsanaysaa marka waxaan waa basals haysta Rubik's Cube waxaan la jiro aan sameeyay marka qaarkood Rubik's Cube dhinaca cad saa u dhameystirtay waana dhinaca guduudka horta khalada dhinaca guduudka dhinaca madowga marka sameeyay waana marba mid isku cadaadis okay intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah waxaan waa big basal iswata please isku day inaad la socotid